dhacdo argagax leh ayaa goordhow ka dhacday degmada Dinsore ee gobolka Baay waxaana gudaha degmadaasi goordhow lagu toogtay nin iyo xaaskiisa waxaana dhaawac culus loo geystay wiil ay dhaleen labada marxuum ee lagu dilay gudaha degmadaasi marxuumka dilka loo geystay asaga iyo xaaskiisa ayaa magaciisa lagu sheegay Xasan Maxamed Maayo wuxuuna ka tirsanaa ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya moota bajaaj ayaa wararku ay sheegayaan inuu wada ninkaasi oo ku waday xaaskiisa iyo wiil uu dhalay waxaana rag hubeysan ay u istaageen gudaha degmada Dinsore ee gobolka Baay meel kamid ah dhowr rasaas ah ayayna la dhaceen ninka waxayna haweeneydu isku dayday inay ninka dhiig ka qalqulaya ay celiso hase yeeshee rag hubeysnaa oo aan ka dhaqaaqin halka ay ninka ay ku dileen ayaa iyana waxa la sheegay in haweeneyda ay rasaas nool ay la dhaceen taasoo keentay in haweeneydu halkaas ay ku dhimato waxaana sidoo kale dhaawac culus ay u geysteen wiil ay dhaleen labada marxuum ee lagu dilay gudaha degmada Dinsore ee gobolka Baay iminkana waxa ay wararku sheegayaan in xaaladiisu ay tahay mid aad culus goobta oo dilka uu ka dhacay ayay wararku sheegayaan inay gaareen ciidamada ammaanka ee degmada Dinsore ee gobolka Baay kuwaasi oo baaritaan ku sameynaya ragga dilka geystay ee goobta iskaga faktay ma jirto ilaa hadda cid xaqiijin karta raggaasi dilka geystay halka ay heebhaan ay ka soo jeedaan hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in raggaasi dilka geystay ay ahaayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya dadka deegaanka ee ku sugan degmada Dinsore ee gobolka Baay ayaa sheegay in dhacdadaani ay tahay mid ay aad uga anfariireen maadaama qoys dhan halkaas lagu wada toogtay sidoo kalena ee ragga dilka geystay ee si fudud ay ku fakteen sababta keentay inuu ninkan uu xaaskiisa uu ku wada mooto bajaaj sidoo kalena uu ku shaqeeyo mootada asagoo ah ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xogaha la igu sheegay in ciidamadaasi maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uusan siinin dhaqaale ku filan waxayna taasi keentay in ciidamadu ay ka shaqeeyaan shaqooyinka gaarka ah sidoo kalena aysan dayicin kaalinta ay kaga leeyihiin ammaanka degmada Dinsore ee gobolka Baay bilooyin ka hor ayay ahayd markii gudaha degmada Dinsore lagu dilay 6 nin kuwaas oo ka wada tirsanaa ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya raggaasina waxaa la xaqiijiyay korkii la dilayay inay ka shaqeynayaan kabar qaad halkaasina ay kaga soo duldhaceen rag hubeysan taasoo keentay in halkaasi ay ku wada geeriyoodaan marxuumiyiinta korkaasi la dilay mid kamid ah ayaa aroos ahaa habeenka la dilayay hase yeeshee ma jirin ilaa iminka tilaabo ay qaadeen ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku soo qabanayaan dibleedii hubeysneed ee dilkaasi argagax leh ka geysatay gudaha degmada Dinsore ee gobolka Baay lama oga tilaabada ay qaadi karaan ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si gaar ah daraawiishta maamulkaasi oo inta badan ku sugan gudaha degmada Dinsore ee gobolka Baay sidoo kalena lama oga iyana tilaabada ay qaadi karaan ciidamada deegaanka ah oo ay ugu soo qaban karaan raggaasi dilka geystay sidoo kalena ay cadaalad ay ku heli karaan qoyska halkaasi lagu wada toogtay